kusoo caalin online kombiyuutarku waa aalad casri ah oo qof kasta lagama maarmaan tahay in uu barto isticmaalkeeda iyo sidoo kale ku shaqaynteedaba. Barashada kombiyuutarku waxa ay u kala baxdaa qaybo aad u tiro badan, laakiin tan ugu muhiimsan ayaa ah in uu qof kasta yaqaano isticmaalka guud ee kombiyuutarka iyo sidoo kale habka loogu fushado baahiyaha aasaasiga ah haddii aad xafiiska ka shaqaynayso iyo haddii aad danaha ku qabsanaysaba. Weliba in aad taqaano ku shaqaynta kombiyuutarka iyo isticmaalkiisa guudi waa shuruudda ugu badan ee inta badan lagu xidho shaqooyinka la soo bandhigo. Caalin online waxa aad ka baran kartaa koorso aad ku baranayso maadada kombiyuutarka. Koorsadaasi waxa aad ka baran doontaa kombiyuutarka bilowgiisa iyadoo beyska hoose lagaga bilaabi doono oo marka hore lagu fahansiin doono isticmaalka guud ee kombiyuutarka iyadoo kadibna lagu bari doono isticmaalka internetka iyo habka loogu shaqeeyo internetka. Sidoo kale waxa aad ku baran doontaa muddada aad ku jirto koorsadan Microsoft Office barnaamijka loo yaqaano iyadoo oo lagu bari doono barnaamijkan loo yaqaano Microsoft Office. Inta badan waxa lagaga shaqeeyaa xafiisyada iyo iskuulada, waxaana lagu sameeyaa waxyaalo aad u tiro badan oo intooda badan ay tahay in lagu diyaariyo qoraallo. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo xayeysiisyadaasi oo aad si fudud ugu horumarin karto ganacsigaaga. sidoo kale barnaamijkan waxaa loo isticmaalaa samaynta iyo soo saaridda kaadhadhka xafladaha iyo aroosyada. waxaa kaloo aad ku samayn kartaa shahaadooyinka dugsiyada iyo jaamacadaha iyo weliba waxyaalo kale oo aad u tiro badan oo aanan muuqaalkan kusoo koobi karin. haddaba dhammaan casharada koorsadani waa maqal iyo muuqaal, sharaxadooduna waxay ku baxaysaa af Soomaali. wixii kugu adkaada ee ku saabsan casharada waa laga caawinayaa muddada aad ku guda jirto barashada koorsadan. haddaba haddii aad jeceshahay in aad bilowdo ood ka mid noqoto ardayda, waxaad nagala xiriiri doontaa lambarada halka sare ku qoran WhatsApp-yadooda ama waxaad riixi doontaa halkan hoose ee ay ku taalo book now. muuqaalkan waxaan kugu tusin doonaa habka aad ula soo degayso application-ka Caalin iyo sidoo kale sida aad iskaga diiwaangelinayso abka Caalin iyo sidaad koorso cusub u iibsan lahayd ama aad uga dhigan lahayd wax application-ka Caalin. marka ugu horeyn waxaynu booqanaynaa ama aynu tegaynaa Google-ka ama Google Chrome-ka hadda ka kugu jira. kadibna Google Chrome-ka marka aynu tagno isla markaaba halkaas sare waxaynu ku qoraynaa caalin.com. mar walba iska hubi Caalin waa 2 weeyaan .com saasaad u qoraysaa. intaa kadib marka aad qorto goobaad leedahay, intaa kadib marka aad website-ka timaado waxa aad la degi doontaa haddii aad qof cusub tahay application-ka Caalin baad ugu horeyn dejisan doontaa adigoo riixaya halkan ay ku qoran tahay gal fasalka marka aad taabato waxa uu kuu sheegi doonaa in aad application-ka la degto Caalin. marka isla markaaba gal fasalka marka aynu taabanay halkan hoose waxaynu ku arkaynaa meel laynoogu sheegayo la deg application-ka Caalin. halkan aad arkayso add Caalin Academy to home screen buu ku leeyahay. marka add baad leedahay halka ay ku qoran tahay taabanaysaa. intaa kadib bogan yar buu ku tusinayaa, wuxuu ku leeyahay Caalin Academy caalin.com install baad taabanaysaa. kadibna install oo macnaheedu tahay ku install gare application-ka mobilkaaga. marka intaa kadib cabaar yar baad sugaysaa, isla markaaba wuxuu ku ogeysiin doonaa in application-kii uu kugu dhacay telefoonka kadibna uu ku install gareeyay. marka intaa kadib waxa aynu tagi doonaa shaashada telefoonkeena oo cabaar baynu yara sugaynaa laakiin inta application-ku inoo soo degayo. haddaba saad hadda arkayso application-kii wuxuu ku leeyahay Caalin Academy added home screen. uu ku degay application-kii buu ku leeyahay, waa kan application-kii halkaas soo istaagay. saad arkayso abkii Caalin baynu hadda dejisanay. marka application-ka Caalin soo fur kadibna si aad isaga diiwaangeliso. haddaba inaynu isdiiwaangelinayn rabnaa waad soo furaysaa application-ka. haddaba abka Caalin marka aynu soo furno isla markaad saa soo furtaba wuxuu ku dhahayaa horta marka hore waa in aad isdiiwaangelisaa. haddaba qaababkeeba la isku diiwaangelinayaa application-ka Caalin waxa aad iskaga diiwaangelin kartaa 2 hab. inaad sign in with Google taabato oo aad isku diiwaangeliso Gmail-kaaga iyo in aad magaranaysaa isku diiwaangeliso Facebook-kaaga. haddaad sign in with Facebook taabato Facebook-kaagu kugu xiriirinaya oo uu kugu diiwaangelinaya. haddii aad sign in with Google taabatana Gmail-kaagu kugu diiwaangelinaya. marka intaa kadib sign in with Google baan taabanaya si uu Gmail-kayga igu diiwaangeliyo aniga. haddaba sidaynu halkan ku wada arkayno imika waynu isdiiwaangelinay. markaad akoonkaaga gasho ama isdiiwaangelinta aad ku guulaysato waxaad arkaysaa kur yaroo halkaas soo istaagaya oo kurkaa yar baad arkaysaa ama sawirkaagaba soo istaagaya hadduu sawir ku saaran yahayna. marka hadda waxaynu ku guulaysanay inaynu isdiiwaangelino. marka hoos baynu wadaynaa koorsada aynu rabno inaynu dooranayna. imika koorso aliyo koorsada aad doontaad iibsan kartaa ama aad iska diiwaangelin kartaa. imika tusaale ahaan oo kale koorsada English-ka ma rabaa inaan iibsado waa 6 bilood, macluumaadkeedu waa halkaa ku wada qoran. marka waad dooranaysaa koorsadaad ku dhufanaysaa. waxaad arkaysaa koorsada qiimaheedii, waqtigaad ku baranaysay,
bishiiba inta lagaa qaadayo beer month waa $6 weeyaan 6 bilood baanaad kaga qalin jebinaysaa koorsadan marka waxaad taabanaysaa take this course si aad u iibsato koorsadan take this course baad taabanaysaa haddaba sideed lacagta u bixinaysaa lacagta waxaad ku bixinaysaa saad sahal ebir evc intaaba waad ku bixinaysaa marka halkan waxaad gelinaysaa lambarka aad lacagta ka dirayso ama aad ka bixinayso waxaan gelinayaa tusaale ahaan 63440 lambarkaygan gelinaya lacagta ka dirayo kadibna bixi hadda lacagtan taabanaya isla markaaba waxa ku soo baxaysa ma hubtaa inaad lacagta bixiso oo Caalin Academy aad ka iibsato koorsada ma hubtaa baa lagu dhahayaa markaba saadaada ama EVC gaaga fariintan baa soo boodaysa kadibna waxaad leedahay passwordkii saadaadaad gelinaysaa ama passwordkii EVC gaaga marka aad biinka geliso saadkaaga ama EVC gaaga ama sahalkaaga marka aad iibsato isla markaaba wuxuu ku tusinayaa inaad Caalin Academy aad ka iibsatay koorsadan kadibna okay baad leedahay inta kadib boggan buu ku keenayaa marka si aad koorsadii aad iibsatay aad u dhigato halka loogada sare Caalin ay ku qoran tahay riixaysaa tagaynaa gal fasalka halka ay ku taalin tagaynaa gal fasalka marka aynu taabano isla markaaba waxa aynu ganaynaa ama aynu helaynaa casharadii ama koorsooyinkii aynu iibsanay baa inoo soo baxaya kadib waxaad imanaysaa halkan saad halkan ku arkayso waxaad arkaysaa active macnaheedu waxa weeyaan waa koorsooyinka active-ka ah ee diyaarka u ah in aad barato marka koorsooyinkan active-ka ah waa kuwa aad iibsatay ee lacagtooda aad bixisay ee aan ka expire garoobin weli haddii koorsadii aad iibsatay ay halkan isa soo dhigi weydo oo ay ku soo bixi weydo waxaad sameynaysaa halka yare saraad farta saaraysaa kadibna hoos baad u jiidaysaa page-ka kadibna refresh wax la yiraahdo sameynaysaa inta kadib way ka soo dhigaysaa halkan hadaad ka weyday markii hore marka imika koorsadan iibsaday markii dhaweyd waxay ahayd koorsadan Englishka ah start by soo baxaysaa ama continue marka koorsada Englishka haydan iibsaday waatan marka continue baan taabanaya inta kadib continue markaan taabto haddana mar labaad waa inaad taabataa kadibna marka boggan buu ku keenayaa casharadii buu ku dhex keenayaa marka heer baad sugaysaa marka casharadii koorsadu ku dhex keenayaa marka saad arkaysaa halkan waa lesson 1 weeyaan lesson 1 ayaad imika soo gashay marka cashirkii koowaad waa kan waa koorsadii Englishka imika dhiganaynaa marka koorso walbana sidan aad u dhiganaysaa noocan oo kale kugu soo baxaysaa oo aad uga dhiganaysaa Caalin Academy marka muuqaalka haddaad rabto inaad daawato waxaad taabanaysaa halka yare muuqaalkaad ku dhufanaysaa marka muuqaalka uu soo baxaya haddaad rabto inaad cashirka la degto halka download ay ku taala taabanaysaa marka si aad u weynayso si aad cashirka u weynayso si weyn lagu tuso halka yare falaaraha taabanaysaa marka falaaraha yare marka taabato si balaaran buu cashirka soo baxaya marka casharada koorsooyinka Caalin aad ka dhiganayso dhan noocan bay kugu soo wada baxayaan marka insha Allah inaad fahantaan rajeynayaa qaabka loo dhiganayo casharadana marka aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay wixii kale ma garanaysaa faahfaahinana WhatsApp kaad nagala soo xiriiraysaa halkan inta taabato WhatsApp kaad fariin noo soo dhigaysaa sidoo kale course waliba wuxuu leeyahay group WhatsApp oo ma garanaysaa ardayda ay isugu timaado marka groupka WhatsApp ka hadii aad rabto halkaas taabanaysaa kadibna markaba groupka WhatsApp ku kugu xiriirinaya aad ku biiraysaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay cashirka xiga si aad u dhigato halkan hoosun baad taabanaysaa isma weli weysidba halkan hoose lesson 2 ay ku qoran tahay baad taabanaysaa cashirka labaad si aad u dhigato lesson 3 gana haddana halka hoosun baad taabanaysaa haddana marka waqti baa lagu qabanayaa mar walba cashirka ku xiga si aad ma garanaysaa kii hore aad u xiftido oo aanad iskaga boodboodin waqti buu ku qabanayaa application-ku aad ka hore waa inaad soo daawataa baa lagu leeyahay marka waqtiga kadib uu kala baad ku furmayaa si aad ugu noqoto kii hore falaadha yare dib taad taabanaysaa kadibna waad ku noqonaysaa marka qaabkaas aad uga dhiganaysaa casharada aad iyo aad baan ugu mahadsantahay daawashada